رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنت كدب ولا ليال عندما أنت نكون حنبليان يا بلشة بشن بركة رمضان وحرجينا يا إن دمانتن أنا وقف إيدسن دون بشاس سيد أقوم مناسبسن وقف إيدسن كرنو وحنا إلهي كرجينا إنه نوافجيه خير كيف فرح بدن. أنت كدب ولا ليال برنامج كانوا برنامج عصوب والله ما بحي صوفناها نحريث إنه يتجديد شيء سها عطاء وحنا قلت لك على برنامج كان بشا بركة رمضان. أنت أداوني سيد قيبها أو كوبينها برنامج كان واحد وقت لا قادن دونتا حبيب كاغا رسول كاغا نبينا محمد صفوة خلق الله أبي القاسم صلوات ربي وسلامه عليه. وحن وقت جينا لا قادن دونا معلنكي بشر ككون كان كنول وحبري قدها يساعدها عمري إن كو قالسا أيان لا قادن دونا حبيب كان محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أنت أنكو جود جرنا برنامج كان وعن سوق قادن دونا شكوين صحيحة وكسابسا صوبناها صلوات ربي وسلامه عليه. وحن سجار ودول الساجد دونا هدو إلهي كران نقضه أخلاق دي سي قروح بناد أو مدي إلهي سبحانه وتعالى وكو أماني سوبنيهيسا نحريس إنه بتقليه دوشيس ها عطاء إلهي سبحانه وتعالى وحو صوبناها كو قلدستي خصائص وحيابا أساقا أقاره أو فربادن وحو كو قلدستي وحيقا وحو كو قلدستي أو كمانيستي معجزات وحو كو قلدستي عدكرنمو iyo hadal heli ogid waxa uu ku galadeystay Ilaahay subhanahu wa ta'ala subaniisa qurux physically wuxuu ku galadeystay shayal kale oo fara badan laakiin marka aad u fiirsatid oo eegtid waxaad arkaysaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka uu subanaha amaanayo uusan ku amaanin waxaas faraha badan ee aan soo tirinay bal uu ku amaanay dabeecadiisii quruxda badneed ee wanaagsan tusaale ahaan aan micinayo haddii aad wiilkaaga u soo iibisid gaari ee aad farta ka saartid furaha gaariga ma laga yaabaa in aad wiilkaaga u qabatid xaflad aad ugu hambalyeynaysid oo ku weyneynaysid gaarigii adiga aad siisay darteed may xafladdaas de wax qiimo ah oo gooniya ma lahan laakiin haddii uu wiilkaaga ku guuleysto kaalinta koowaad ee iskuulkiisa kaalinta koowaad ee dugsiga sare waa laga yaabaa markaas inaad u qabatid xaflad aad ku dhiiri gelinaysid oo ugu hambalyeynaysid maxaa yeelay gaaritaanka uu gaaray halkaas kaalintaas uu galay waa juhdigiisi dadaalkiisi kasabkiisi wax shakhsiyan asaga uu sameeyo oo ku dhaqaaqay dabeecadu waa juhdi dadaal bashari oo qofku shakhsiyan asaga ku dhaqaaqay oo sameeyo dabeecada wanaagsan waa deeqsinimada waa siinta waa martisoorka waa wanaaga waa yaani naxariista aad u naxariisanaysid dadka ka agdhow ee hareeraha joogo waa in aad u noqotaa qof ay kaga daysadaan wanaaga wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay codkarnimo wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay xusuus aad u weyn oo yaani aqliga insaanku uusan soo qaban karin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waata uu leeyahay sanqri'uka fala tansa quraanko idil baa lagu aqrinayaa odan ilaabin rasuulka sallallahu alayhi wasallam quraanko idil baa lagu dul aqrinayaa oo sun ilaabin xusuusnaanaya sanqri'uka fala tansa daakirada intaas la eego Ilaahay siiyay xusuusta wuxuu siiyay mucjizaad wuxuu siiyay wahyi wuxuu siiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanki wuxuu siiyay jawaami'ul kalim waxa uu qaaday samada hawada sare ayuu geeyay
laakiin intaasoo idil ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa markuu uu ammaanayay ma uusan ku ammaanin maxaa yeelay waxaasoo idil waa wax asaga uu siiyey waa wax asaga uu ku galladaystay oo uu ku manaystay maxaa yeelay isaga ayaa u doortay inuu noqdo nebigiisii rasuulkiisii midkii asaga uu soo diri lahay ummadda midkii ummaddaas ugu yeeri lahay asaga xaggiisa kii ka saari lahay addoommada caabuditaanka ay caabudayaan addoommada kale ee u saari lahay inay caabudaan ilaahayga addoommadaas min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad laakiin markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaanayay xabiibkeena subanaha salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu ku ammaanay dabeecaddiisii wanaagsaneed ee quruxda badneed oo waxa uu yidhi wa innaka lacalaa khuluqin cadiim naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaato dabcigii quruxda badnaay ee naxariistii iyo dabeecaddii wanaagsaneed ee uu lahaay waa midda ugu weyn waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee ugu weyn uga daysanayna subanaha salawaatu rabbi wasalaamu calayh dabeecaddiisii quruxda badneed oo ahayd yacni mid qof insaan ahi uusan yeelan dabeecadihiisii oo idil way jirtaa in dadka qaar ka mid ah dabeecadahaas wanaagsan ay lahaayeen ama haddaba dadka jira oo qaar ka mid ah ay leeyihiin dabeecadaas laakiin ma arkaysa qof wada helay dabeecadahaasoo idil tusaalahaan markaad akhrinaysid kutubta yacni laga qoray dadka adduunka saameynta ku yeeshay kuwa carbeed tusaalahaan waxaa jira dad tusaale loogu soo qaato xilmigoo kale sida axnaf oo kale dulqaadka tusaale loogu soo qaataa iyo mid loogu soo qaato caqligii dakaa sida iyaasoo kaleeto iyo dad kaloo fara badan oo dabeecadaha wanaagsan tusaale oo sida run sheegidda ballan oofinta iyo ammaanada iyo sifooyin kale oo fara badan oo wanaagsan ayay tusaale u yihiin oo markii la soo xasuusto la soo qaadaa hadalkooda laakiin muusan jirin qof hantay oo iskugu tageen oo ay ka muuqatay dabeecadahaas aan soo tirinay oo idil ilaa xabiibkeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaato halkaas ayaad ka dheehan kartaa macnaha aayaddii wa innaka lacalaa khuluqin cadiim رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله waxa ay ugu jawaabtay oo ay ku tiri hooyadeena Aisha Allah ka raali noqday dabeecadda rasuulka sallallahu rabbi wasallam alayhi waxa ay ahayd quraanka kana khuluquhu alquran يا حبيبي يا نبي الله يا رسول marka uu qofka la hadlayo uu wada jeesan jiray oo fiisikal qofkaas ay jirkiisu dhan u jeedin jiray qofkaas ha yaraado ama ha weynaade haddii qof gacan geliyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waa qofka ugu dambeeyo ee gacantiisa la baxo فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد القرآن آمسن قرآنكنا وكون هلا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وحقوق هاي قرآن ملك دشي سسعد قرآن يمشي على الأرض قرآن ملك دشي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد